2,839 arday oo isugu jira ardayda fasalka afraad ee dugsiga sare iyo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ayaa guud ahaanba gobolka Awdal u fadhiistay imtixaanka shahadiga ee Somaliland. ardaydan oo loo qorsheeyay inay imtixaanadaasi ku kala galaan 22 goobood oo gobolka ku baahsan ayaa waxaa xusid mudan in habsami u socodka imtixaanadaasi ay kala qayb qaadanayaan in ka badan 300 oo saraakiil ah oo ka kala socda wasaaradda waxbarashada ee heer qaran, heer gobol iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga. qaar ka mid ah ardaydii maanta ka soo baxday imtixaanadaas oo dareenkooda cabiray ayaa waxa ay xuseen cabdiwaaxid cabdilaahi waa arday indhool ah waana ardayga keliya ee imtixaanka fasalka 8aad la galayay maanta ardaydan kala duwan isagoo ay u dheer tahay baahi gaar ahi. waxa kale oo la tilmaami karaa in imtixaanka maanta uu galay ardaygan baahida gaarka ah qaba inuu ahaa mid heer gobol ah isla markaana aanay soo sameyn mas'uuliyiinta heer qaran ee wasaaradda tacliintu. laakiin sidoo kale galaaska ka mid baa iskuulka ka mid buu ahaa wasaaraddiina qorshaha ugu jirin qaybtan bareelku oo wali may gaarin heerkaasi sabab dadka bareelahan loo ku sameeyay heer gobol maadaama iskuulka halkan iskuulka jiri jiray indhool wax dadka indhool kale wax lagu baro iskuulkuna ka jiray. sidoo kale sarkaalka ugu sarreeya wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal Umar Suldaan Indhamood ayaa maanta fariimaha uu dhiibay saxaafadda ee ku aadanaa guud ahaanba imtixaanada shahadiga ah waxa ay ahayd mid ay qabyo badani ka muuqato waxaana fariinta ugu ballaaran uu diray ay ku wajahnayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaan halkan ka salaamayaa oo waliba u dirayaa maaragtay warbixin gaar ah aan u gudbinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Marwa Samson waxaan u sheegayaa inay hawshii si fiican sida aad noo soo dardaartay iyo si ka fiican inay u socoto. Abdullah Ali Yusuf